أعاني مد الأيادي دثروني إنني في كربة وأرى الحياة أمامي فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale casharkeennii maadada fiisikiska ah ee jabtarka koobaad fasalka afraad dugsiga sare. maanta waxaan ka hadli doonaa mathematical representation of simple harmonic motion. waayahay waxaan ku qaadan dhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo erayo ka mid ah erayada ayaan kusoo qaadan ama termiska terms used to describe simple harmonic motion. termiska ama eray bixinada lagu qeexo ama loo isticmaalo in lagu qeexo simple harmonic motion isku dibdhaca fudud. Displacement maxaa la yiraahdaa? barbax maxaa la yiraahdaa? is the change in position waa isbedelka meel of an object ee show uu leeyahay from uu iska bedelayo it is equilibrium position booskiisa equilibrium ka ah qaybta dhexe. equilibrium maxaa la yiraahdaa? beesha oo shayga uu leeyahay oo maxaa la dhahayaa moolada ama shayga displacement sameeynaya kala jiidmaya. haddii la kala jiidan wuu dheeraadaa, haddii la cadaadiyo la riixan wuu gaabtaa. intaan ka ahayn oo beeski koodii uu lahaay ah ayaa waxa loo yaqaanaa equilibrium ama booska dheelitirnaanta aan dhahno. haddii aan sawir ahaan u fiirino equilibrium position mooladan aan u jeedno qaybtan dhexe waxay ahayd markii hore waa rest, waa u jeedaa way taagneeday lama kala jiidin. markaan extension lagu sameeyay waa la jiiday, force loo adeegsaday waa la jiiday. markaana maxaa la sameeyay compression waa la cadaadiyay waa la riixay. markaani hoose waa la riixay oo dhaqaaqii sameysay, markaana waa la jiiday. laakiin markaani meesheedii taagan tahay booskan ay taagan tahay waxaa loo yaqaanaa maxaa la yiraahdaa equilibrium position. equilibrium position ka marka haddii sida ugu dhaqaaqdana displacement ay sameysay, haddii sida ugu dhaqaaqdo qaybta hoose oo kalena waxay sameysay displacement. displacement waxaa marka waa sheegay inuu equilibrium position kiisa ka dhaqaaqo kaaba waxaa la yiraahdaa equilibrium, isaga ayaa loo yaqaanaa. way casharkan aan gudagal marka way erayga labaad ka displacement soo faan waa isbedelka booska uu shayga ka soo dhaqaaqayo ama uu ka hore ha u socdo ama gadaal u socdo. equilibrium position ka displacement la yiraahdaa. amplitude maxaa waaye? is the magnitude of maximum displacement waa cabirka shayga meesha uu dheer uu gaarayo. or amaba عفوا labada maximum ka dhigna meeshan or minimum way or minimum amaba meesha ugu hooseysa or minimum ma dhahan meesha oo meesha ugu hooseysa or minimum distant amaba fogaanta ugu hooseysa gaaro of an object shay uu leeyahay. its equilibrium position عفوا marka hore aan saxsaneen aan ku soo celiyo marka amplitude is the magnitude of amplitude is the magnitude of the maximum displacement. amplitude waxaa la yiraahdaa meesha ugu sarreysa oo shayga uu gaaro. or ama waxaa kaloo la dhihi karaa the maximum distance masaafada ugu dheer oo of an object shayga uu gaaro from asoo soo bilaabanaya equilibrium position. meesha ugu dheer shayga uu gaaro waxaa loo yaqaanaa amplitude la yiraahdaa. okay, maxaa inoo xiga? waxaa inoo xiga marka inaan qeexno angular frequency. عفوا angular frequency ayaa inoo xiga. waa frequency ama rakaad xagaleedka uu sameeynaa shayga. this tani is defined as angular displacement. waxaa lagu qeexaa barbaxagleedka per unit time waqtigeeba. and it's an SI unit halbeegiisana maxaa its unit halbeegiisana waa radian per second oo la soo gaabiyo rad per second. if the mass of the spring makes one full revolution haddii maaska moolo uu sameeyo culayska ama cufka moolo uu sameeyo hal wareeg oo dhameystiran ama 2 by radians waa isku mid. one full revolution 2 by radians in one period hal kal hadduu sameeyo ama hal waqti, then the angular frequency can be found. waxaa lagu heli karaa qaacidada soo socota. waxaa lagu helaa omega 2 by loo qeybiyo t 2 by يعني waa 360 oo wareega dhameystir waa 360 oo loo qeybiyo t oo ha period ka 360 oo loo qeybiyo waqtiga ay ku qaadato. waxaan ogaan karaa marka angular frequency ama rakaadka inta mar uu noqday ayaan ogaan karaa shayga wareeganay. waayahay
other relations waa 3 equations oo kala waaye omega hadaa waxaan soo qaadanay in lagu helo omega in lagu helo soo qaadanay maxaa la yiraahdaa omega loo qaybiyay waxaan rabaa 2 by loo qaybiyay f hada 2 by loo qaybiyay t yarba afan 2 by loo qaybiyay t ayaan ku soo helnay hada omega waxa lagu heli karaa hadana sidoo kale radical k loo qaybiyay m 2 by loo qaybiyay t waxaad ku heli kartaa markaad maxaa la dhahay time aad has period markaad haysatid laakiin period aad haysatid k oo ah constant spring ah iyo m oo mask ah inta aad haysatid tana ku shaqeynaysaa waxaan kaloo nirsi period qaacidada lagu helo period waxa lagu helaa 2 by loo qaybiyo omega sidoo kale waxa lagu helaa 2 by radical m loo qaybiyo k frequency waxa lagu helaa 1 over 2 by radical k loo qaybiyo m sidoo kale frequency waxa lagu helaa omega loo qaybiyo 2 by sidoo kale hadii period aan haysto frequency waxaan hore u soo bartay inaan ku heli karo 1 over t cagsigeeda hadii aan frequency haystaan waxa period ku heli karaa 1 over f waayahay aan galna marka tusaalaheeni toddobaad wuxuu leeyahay 200 gram block connected to a light spring waxa la yiraahdaa 200 gram shay 200 gram ayaa lagu xiray moolo yar oo khafiif ah shay culeyskiisa uu yahay 200 gram ayaa waxa lagu xiray moolo yar oo khafiif ah whose force constant taasoo doorsoomaha xoogeeda ama awoodeedana uu yahay ama xoogeeda 5 newton per meter 5 newton per meter is free to oscillate on a horizontal frictionless surface waxay xor u tahay inay oscillation ku sameeyso ku dhaqdhaqaaqdo meel frictionless aan friction lahayn oo raf ahayn oo siman oo hadana jiif ah the block is displaced markii shayga lagu xiray blockii lagu xiray is displaced wuxuu barbaxay u jiidmay 5 cm ayuu ka jiidmay from equilibrium meeshii equilibrium ka ahaday booskiisii hore oo lahaay markii culeyska lagu xiray uu jiidmay ilaa 5 cm and released kadib waa la sii deeyay from rest meeshii uu tagay ee laga sii deeyay ashaam sida ka muuqata in figure below sawirka aan fiirina marka waa kana sawirka boolada meeshaan ay taagneed marka hore waa la jiiday maaskana lagu xiray waa la jiiday ilaa 5 cm waa ka ilaa 5 cm la jiiday ilaa 5 cm ayaa la jiiday waa kana sawirka sida ka muuqata marka meesha uu taagnay x muxuu ahay marka hore displacement 0 sababtoo lama jiidin maas lagu xiray waa la jiiday ilaa 5 cm waa maxaa la weydiiyay marka waxaana la weydiiyay the angular frequency ayaana la ka rabaa waxa kale oo la rabaa the period of its motion iyo frequency of its motion waxa laga rabaa frequency angular frequency omega na la rabaa shaygaani inta wareeg uu sameeyay waxaana la ka rabaa period of its motion kalka motion kaasi dhaqaaqaasi kalka ay ku qaadato waqtiga ku qaadatay waxaana la ka rabaa frequency of its motion iyo rakaadka uu sameeyay dhaqaaqaasi saddexdaas su'aal ayaa la ii diray bal aan ka jawaabno given aan la soo baxo horta given aan soo baxo mass maxaa haystaa 200 maxaa kale oo haystaa k oo ah force constant oo 5 newton ah maxaa kale oo haystaa displacement oo ah 5 cm inta aan la soo baxo given ka diyaarsano given ana haystaa asoo ogaade mass inaan haysto mass meeqa haystaana aan ku laabto mass meeqa wata dabcan aan fiirino mass waxaan haystaa 200 gram 200 oo gram haystaa constant force k maxaan haystaa 5 newton per meter mass waxaan soo helay waxaan ogaaday inaan haysto 200 gram maxaa kale haystaa k constant force maxaan haystaa isagana aan haystaa 5 newton per meter maxaa kale haystaa x waan haystaa x maxaan haystaana waxaan haystaa 5 cm okay maxaa la ii diray marka saddex shay la ii diray waxa la ii diray marka hore omega waa la ii diray kow maxaa kale la ii diray waxa la ii diray frequency maxaa kale la ii diray waxa la ii diray period period ka hormari period ka horeeya period marka hore la ii diray kadib maxaa la ii diray frequency okay saddexdan su'aal aan rabaa inaan ka jawaabo marka hore aan ku hormaro omega si aan u helo qaacidada adeegsanaa marka laba qaacida soo bartay waxaan haystaa ku xisaabtamay t ma haysataa maya haddaan t haysanin qaacidadii hore ma adeegsan karo qaacidooyinka bal aan fiirino hal mar qaacidadan miyaan adeegsan karaa 2 by loo qaybi t ma haysti maya ay qaacidooyinka kale aan aadabal
قاعدة أديكس كرسا وهلا أوميجا حلو هلا كي لو قيب إم طبعا كين وأنا هستا إم وأنا هستا صادرت هذا قاعدة أنا أديكس كرا قاعدة أنا أي سكرا أوميجا حلو هلا مدكورة راديكال كي لو قيبي إم أوكي هاي وحلو هلا ولي أوميجا راديكال كي لو قيبي إم قاعدة أنا أديكس كرا مرك هاي أنا سوقات مرك راديكال كي محن هستا بوسيس عم بدشة أوكي كي محن هستا كي waxaan haystaa balan fiirino kii maxaan haystaa 5 newton per meter ku bedelo 5 newton per meter haya m na maxaan haystaa m dabcan isagu waxaan haystaa 200 gram waan iska bedelay 100 oo qiim maxay soo baxay 0.2 kilogram ku bedela mar meesha gram waxa ku bedeshaa kilo meesha oo maxaa la dhahay mask waxa ku bedelnaa 0.2 afwan arba exar 0.2 kilogram اوكي ugu dambeyn labadooda isku qeybi 5 hadii loo qeybi 0.2 maxay soo bixi doonaa oo qeybi waa 205 waa 25 afwan waa 25 okay ugu dambeyn aan ka saaro marka waxaan rabaa inaan ka saaro xididka 25 xidid ka saar maxaa ku soo bixi doonaa 25 xidid ka saar waxay soo bixi doonaa 5 omega maxaa lagu cabiraa omega waxaa lagu cabiraa dabcan rad per second okay omega waan soo helay waxaa la ii diray oo kale period iyada maxaa lagu helaa period dabcan maadaama hadda omega aan soo helay period waxaan ku heli karaa qaacidadan 2 by loo qeybiyay omega waan soo helay 2 by waa iska number caadi ah 2 lagu dhiftay by waayahay aan ku badbadasho 2 waa number iska soo qabo 2 lagu dhuftay by meeqa oo qaadan karaa by waxa qaadan karaa 3.14 sababtoo ah radian baan ku cabirooyaa haddii aan degree ku cabiri lahaa maxaa qaadan lahaa 180 aan qaadan lahaa la soco ha ku wareerin byda marna 180 marna 3.14 radian waay radian sheeg marka ku cabiraysid 3.14 waa markaad ku cabiraysid maxaa la yiraahdaa degree-na waa 180 waayahay loo qeybiyo omega meeqa haysta omega waxay soo baxday 5 dabcan loo qeybiyay 5 haddii aan 2 lagu dhufto 3.14 maxay soo baxay 6.28 dabcan isku dhufo 2 lagu dhufto 3.14 waxay soo baxay 6.28 waxaa samaysaa 3.4 ku dhufo loo qeybiyo 5 taas sidee u soo qaaday ugu dambeyn isku qeybi marka 6.28 u qeybi maxaa ii soo bixi doona marka 6.28 markii loo qeybiyo 5 dabcan waxa ii soo bixi doona waxa la yiraahdo 1.26 oo second ah inta ay soo bixi doonto waayahay su'aashii qaybteedii labaad waan ka shaqeeyay qaybta saddexaad ugu dambeyn maxaa la diray frequency rakaadka ama noqnoqodka sheegan uu sameeyay isaguna bal aan raadino waayahay ugu dambeyn frequency waxa lagu helaa 1/t inta qaacido waan adeegsan karaa frequency waxa lagu helaa 1/t dhihi karaa frequency waxa lagu helaa omega loo qeyb 2 by dhaha karaa frequency waxa lagu helaa 1/2 by radical k loo qeyb m loo qeyb k waxa inta saddexda qaacidaba waa isku mid marka maadaama period aan haysto waxa iga fudud midda inaan iska qaato iyada ay fudud sababta hal loo qeybiyay t meeqaasta 1.26 bas la leeyahay ku badala marka waa number siiska qaado wan isagu ma ahan doorsoomo ma ahan 1.26 kale marka 1.26 ugu dambeyn marka inta isku qeyb maxay soo bixi doonaa marka hal loo qeybiyay 1.2 maxay soo baxay bal aan fiirino asku dhufana bal hal aan u qeybiyay u qeybi meeqa u qeybina 1.2 طبعا maxay soo baxayana 0.79 marka hal iska soo guuri 0.8 iska dheh 0.79 maxaa leeyahay karaa 0.8 frequency maxaa lagu cabiraa hertz dadis waxaan rajaynayaa inaan qaybahan laba gartay lana fahmi doono biidnillah hadii lagu celiyo intaan casharkeena kala ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabaddiino